بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegeystayaasha qiimiga qaayaha mudan ee halkan naga dhegeysanayo waa codka Soomaalida Finland SSM oo aad isniinta Arbacada iyo Jimcaha uga barateen inaanu idinka soo gudbino wararka ku saabsan viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale maanta oo Arbaca ah bisha February ee tahay 3 haddii aanu ku horeyno dalkan Finland sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga THL waxaa viruska laga helay maanta 265 qof oo hor leh iyadoo hal qofna uu dhintay taasi oo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland tan iyo intii xanuunka safmarka uu ka bilowday ka dhigaysa 46,940 qof isku darka guud ilaa iyo 51 magaalo oo dalkan Finland ayaa laga helay cudurka waxaana ugu badan meelaha viruska laga helay gobolka Helsinki ee Uusimaa oo caasimadda iyo hareeraheeda ah lagana helay 167 qof gobolka Varsinais-Suomi oo laga helay 44 qof iyo gobolka Pohjois-Pohjanmaa oo laga helay 9 qof magaalooyinka laga helay tirada ugu badan ee viruska ayaa ah sida tan soo socota Helsinki 64 Vantaa 46 Espoo 25 Turku 20 qof Järvenpää 8 qof Tuusula 7 qof Oulu 7 qof magaalooyinka Kerava Kuopio iyo Paimio 6 qof Jyväskylä 5 qof Uusikaupunki 4 qof magaalooyinka kale ah Kaarina Savonlinna Kemi Joensuu Kotka iyo Tampere oo 3 qof laga helay iyo magaalooyinka kale ah Naantali Nurmijärvi Parainen Kankaanpää Lieto Rauma Vihti Tornio iyo Raseborg oo laga helay 2 qof inta soo hartay magaalooyinkana waxaa laga helay 1 qof xanuunka viruska coronavirus waxaa isbitaalka ugu jira 129 qof sida ay sheegtay hay'adda THL kuwaasoo 23 qof oo kamid ay ku jiraan qaybta gargaarka degdega ah tirada dhimashada ayaa hay'adda caafimaadka THL waxa ay sheegtay in dalkan Finland ay haatan marayso 685 qof kadib markii maanta galinkii dambe hal qof oo hor leh uu dhintay viruska corona iyadoo shalayna tirada dhimashadu ahayd 7 qof isku darka guudna sidaas ay ku noqotay 685 dhinaca kale ee wararkana madaxweynaha dalka Finland Sauli Niinisto oo maanta ka hadlaya furitaanka kalfadhiga golaha shacabka baarlamaanka ee dalkan Finland ayaa waxa uu sheegay in ka hortagga ama dagaalka lagula jiro viruska corona ay tahay mid laga maarmaan ah in qof kasta labadiisa dhagood laga helo taasi oo ula jeeday u hoggaansanka fariimaha ka imanaya dhanka howladeennada caafimaadka madaxweyne Niinisto waxa uu sheegay in xadeynta nolosha caadiga ee qofka ay tahay mid ciqaab dheer ama loo dareemi karo inay tahay mid dhibaato badan oo culus laakiin waxa ka ciqaab kulul kana culus buu yiri qofka oo xanuunsada ama in dad ehelkiisa oo xanuunka u dhinto Niinisto waxa uu sheegay in qof kasta ay tahay in uu mas'uuliyadda dhankiisa ka qaado isagoo xildhibaanada golaha baarlamaanka ku booriyay in ay tusaale weyn oo cad u noqdaan dadweynaha inta kale Niinisto waxa uu sheegay in xitaa haddii la kala aragti duwan yahay ay tahay in qof kasta uu qaado u hoggaansanka mas'uuliyadda fariinta inaga wada dhaxaysa nooca cusub ee viruska corona ee Ingiriiska ka soo ifbaxay ayaa waxaa laga helay dalkan Finland 11 xaaladood oo hor leh warbixinaha soo gaaraya hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga THL ayaa sheegaysa in tiradii hore u jirtay 11 ay ku kortay dhammaan noocyadan cusub oo la helayna waa nooca viruska Ingiriiska ee variant loo yaqaan isku darka guud ayaa waxa ay haatan marayaan 127 kuwaasoo 116 kamid ay yihiin nooca viruska Ingiriiska halka 11 kalena ay yihiin nooca viruska ee laga helay dalkaasi Koonfur Afrika tirada cusub ee dadka laga helay viruska corona ee maanta ayaa guud ahaan 265 ahayd iyadoo labadii toddobaad ee ugu dambeysay tiro ka badan 1200 ay ku korodhay tiradii la helay labadii toddobaad ee kasii horeysay dadka ilaa iyo iminka la tallaalay sida ay sheegayso hay'adda THL ee caafimaadka iyo nolol wanaagga dalkan Finland ayaa tiradoodu gaaraysaa in ka badan 149,951 qof tiradii shalay waxaa ku korortay qiyaastii 4,000 oo qof iyadoo dadka da'doodu ay ka weyn tahay 70 sano ee haatan qaybta hore ee tallaalka la siiyay tiradoodu gaarayso 53,500 dalkan Finland tallaalka dadka la siin doono ayaa waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood qaybta labaad ee tallaalka ee dhamaystirka waxa ilaa iminka helay 23,400 oo qof
meelaha ugu badan ee tallaalka dadka la siiyey waxaa ka mid ah Helsinki, Uusimaa, gobolka Birkama iyo gobolka Varsinais-Suomi. Haatanna qodobadii wararka dibadda ugu doorka roona. Dowladda dalka Denmark ayaa shaaca ka qaaday in ay bilaabi doonto isticmaalista waxay ugu yeertay baasaboorka corona, kaasi oo loo isticmaali karo safarada dibadda ah haddii diyaaradaha qaarkood dadka ay ku xiraan in qofku uu qabo tallaalka iyo in kale. Sidoo kale dowladda dalka Denmark ayaa shaaca ka qaaday inay si dhaqso ah u hirgelin doonto application dhinaca digitalka ah oo loogu talagalay taleefanada tayadoodu ay sarreyso, kuwaasi oo u shaqeyn doona sida baasaboorka corona oo kale. Waxaana ujeedadu ay tahay in qofka loogu qoro xadeymaha lagu soo rogo si markaasi loo ogaado qaabka looga fasaxayo xadeymahaasi. Waxaa sidoo kale baasaboorkaasi lagu qori doonaa labada qaybood ee tallaalka ah ee qofku uu qaadanayo. baasaboorkaasi dhinaca digitalka ah horumarintiisa waxaa la sheegay ama dowladda Denmark ay sheegtay inay qaadan doonto muddo 3 ilaa 4 bilood ah. dalka Ruushkana maanta waxaa lagu soo waramayaa in tiro ka badan 16,000 oo qof laga helay viruska corona, iyadoo 500 in ka badan ay u dhinteen. dalkaasi Ruushka ayaa Arbacadii waxaa sida wararka ay sheegayaan laga soo xigtay xarumaha caafimaadka tirada rasmiga ah ee la helay ay tahay 16,474, iyadoo 1,500 in ka badan dadka laga helay viruskana ay yihiin kuwa ku nool caasimadda Moscow iyo hareeraheeda. Maalmahan ayaa dalkaasi waxaa ka socday banaanbaxyo aad u xoog badan, kuwaasi oo looga soo horjeedo xariga dowladda ay u geysatay ninka mucaaradka ah ee dhowaan ka soo noqday dalkaasi Jarmalka kadib markii hore loo sumeeyey oo halkaasi lagu soo daweeyey. tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Ruushka ayaa waxa haatan ay ku dhowdahay qiyaastii 4 milyan oo qof. Dhimashada 24 saac la soo dhaafay ayaa 526 ahayd, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 75,000 oo qof. howlwadeennada caafimaadka ee dalkaasi Austria ayaa shaaca ka qaaday inaanay ogolaan doonin in tallaalka AstraZeneca dalkaasi laga isticmaalo, kadib sida ay sheegeen in markii hay-addaasi aanay soo gudbin macluumaadkii ku filnaa arrinkaasi ee laga rabay. howlwadeennada caafimaadka ee dalka Austria ayaa sheegay in haddii ay doonayso shirkadaasi AstraZeneca in tallaalka ay soo saarto laga isticmaalo dalka Austria ay tahay in ay dowladda Austria u soo gudbiso warbixinaha dheeraadka ee la xiriira qaybta saddexaad ee tijaabinta tallaalkaasi ee ka socda wadamada waqooyiga iyo koonfurta Latin America. kadibna waxa ay sheegeen in dowladda Austria macluumaadkaasi ay baaritaan ku samayn doonto. golaha midowga Yurub ayaa jimcihii la soo dhaafay ogolaanshaha iibsiga waxa uu siiyey shirkadda AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford tallaalka ay wada wadaan. hase yeeshee dalalka Sweden, Faransiiska, Jarmalka ayaa waxa ay sheegeen howlwadeennada caafimaadku in tallaalkaasi aanay siin doonin dadka da'doodu ay ka weyn tahay 65 kadib markii la sheegay in waxtarkiisu uusan sidaasi u sii buurnayn. dowladda dalka Sweden ayaa shaaca ka qaaday in dadka ajnabiga ah ee soo galaya dalkaasi Sabtida soo socota laga bilaabo laga doonayo in ay sitaan shahaadada cadeynaysa inaanay qabin viruska corona ama negative ay yihiin. sidaasina waxaa maanta shir jaraa'id ka sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Sweden Stefan Löfven, waxaana uu sheegay in ay tahay shahaadadaasi 48 saacadood ka hor mid la iska soo qaaday inta qofku aanu soo gelin dalka Sweden. maanta oo Arbacada dalkaasi Sweden waxaa laga helay tiro gaaraysa 4,310 qof oo hor leh oo qaba viruska corona, sida ay sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee dalkaasi Sweden oo arrinkaasi ay kasoo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. tirada dhimashada ayaa ahayd 124, inkastoo Reuters ay sheegtay in tiradaasi ay ahayd tirooyin la isu geegeeyey dhowr maalmood oo kala duwan. marka aynu eegno caalamka oo dhan, tirada guud ee dadka laga helay viruska corona adduunweynaha ayaa maraysa 104,580,575 qof. tirada dhimashadana waxay maraysaa 2,264,877 qof. qaaradda Yurub ayaa maraysa 33,759,554, iyadoo tirada dhimashada ee qaaradda Yurubna ay marayso 750,397. Mareykanka ayaa kaalinta koowaad ku jira, waxaana uu marayaa in ka badan 27 milyan. waxaa Mareykanka 24 saac la soo dhaafay laga helay 114,785 qof oo hor leh, iyadoo tirada dhimashada 24 saac la soo dhaafana ay ahayd 3,644 qof.
guud ahaan tirada guud ee dhimashada ayaa Mareykanka maraysa 457,868. meelaha sida aadka ah faafista iyo dhimashada uga jirta waxaa ka mid ah dalka Brazil oo kaalinta saddexaad ku jira 9.2 milyan ay tirada guud maraysa. 24 saac ee lasoo dhaafay Brazil waxaa laga helay 56,240 qof iyadoo 1,240 ay u dhinteen. tirada guud ee dhimashada ee Brazil ayaa maraysa 226,383. dalka Ingiriiska oo kaalinta shanaad ku jira haatan 4 milyan qarka u saaran ayaa waxaa 24 saac lasoo dhaafay xanuunka laga helay 16,840 qof iyadoo tirada dhimashada Ingiriisku 24 saac lasoo dhaafay ahayd 1,449. tirada guud ee dhimashada Ingiriiska ayaa maraysa 108,013 qof. Spain ayaa ka mid ah meelaha sida ba'an 24 saac lasoo dhaafay tirada faafista iyo dhimashaduba ay cirka isku shareertay. dalkaasi Spain oo tirada guud ee dadka laga helay haatan 3 milyan qarka u saaran yahay ayaa 24 saac lasoo dhaafay waxaa laga helay 29,064 qof. tirada dhimashaduna waxay ahayd 724 taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 59,805. dalka Mexico ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ah dhimashadu uga jirtay. kaalinta 13aad ayuu caalamka kaga jira waxaana 24 saac lasoo dhaafay Mexico ka dhintay 564 iyadoo tirada guud ee dhimashada ee Mexico ay tahay 159,100 qof. dhinaca qaaradda Afrika dalka Koonfur Afrika oo kaalinta 15aad caalamka kaga jira 1.4 milyan ayay tirada guud maraysaa. 2,649 qof ayaa 24 saac lasoo dhaafay laga helay 547 waa ay u dhinteen viruska awgiis taasi oo tirada guud ee dhimashada ee dalkaasi Koonfur Afrika ka dhigaysa 4,946 qof. dhinaca kale marka laga eego dalalka haatan tirada 1 milyan kusoo dhow ayaa waxaa ka mid ah dalka Czech iyo dalka Holland. Czech mar hore ayuu maanta gelinkii dambe fooda waxa uu la galay tirada 1 milyan. 24 saac lasoo dhaafay 9,057 qof ayaa laga helay. dalka Netherland ayaa waxay u dhowdahay in 1 milyan bahda uu kusoo biiro maalinta berita ama maalinka ku xigta iyadoo haatan tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee dalkaasi Holland ay marayso 989,237 qof. 24 saac lasoo dhaafay Holland 4,013 ayaa laga helay 61 qofna way u dhinteen iyadoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 14,169. waxaa kusoo xiga oo kaalinta 22aad ku jira dalka Canada oo 788,643 maraya. 24 saac lasoo dhaafay Canada waxaa laga helay 2,223. tirada dhimashaduna waa 104 iyadoo tirada guud ee dhimashada dalkaasi Canada ay marayso 20,317. kaalinta 23aad waxaa kusoo xiga dalka Boortaqiiska oo xaaladiisu ay aad uga soo dareysay baryahan gaar ahaan dhinaca daryeelka caafimaadka kadib markii isbitaalada ay buux dhaafeen. Boortaqiiska 740,944 qof ayay tirada guud maraysaa. 24 saac lasoo dhaafay kaliya in ka badan 9,000 ayaa laga helay iyadoo tirada dhimashaduna 240 ay ahayd taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 13,257 qof. dalalka carabta marka la fiiriyo waxaa ugu horeeya dalka Ciraaq oo kaalinta 28aad kaga jira dhanka caalamka. Ciraaq waxa ay maraysaa 623,072 qof iyadoo 24 saac lasoo dhaafay in ka badan 1,000 qof laga helay xanuunka viruska corona. waxaa kusoo xiga dalka Morocco oo kaalinta 34aad ku jira 473,047 qof ayay tirada guud ee dalkaasi Morocco haatan ay maraysaa. waxaa kusii xiga dalka Sacuudiga oo kaalinta 39aad ku jira 368,945 qof ayaa Sacuudigu haatan u maraya. 24 saac lasoo dhaafay 306 qof ayaa laga helay viruska corona iyadoo sida wasiirkooda caafimaadku shalay uu sheegay uuna hanjabay dadweynaha in lagu soo rogi doono xayiraado hor leh haddii dadku ay u hoggaansami waayaan fariimaha ka imanaya dhanka howlwadanada caafimaadka gaar ahaan arrimaha ku saabsan isu imaatinka kooxaha ah oo haatan dib u soo noqday. wararkii ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale oo dhegeystayaal aad kala socoteen codka Soomaalida Finland SSM intaa ayaan kusoo koobaynaa
tan iyo inta aanu ku kulmi doono mid lamida barnaamijkan waa dardaarankeennii ahaa in qof walba u hoggaansamo fariimaha ka imanaya xarumaha caafimaadka, gaar ahaan arrinka ku saabsan in la yareeyo isu imaatinka la isu tagayo, maadaama haatan laga cabsi qabo in noocii cusbaa ee viruska corona uu si aada u faafo. taasi oo waxyaabaha uu ku faafa ay ka mid tahay dhinaca isu imaatinka. weliba noocan cusub inta badan dhalinyarada iyo dadka da'da yar iyagoo aan wax astaana lahayn ayay sidaan. sidaa darteed ayaa lagu talinayaa in la yareeyo wada xiriirka dhow iyo isu imaatinka intii laga maarmi karo. dhammaanteen ayay danteenu ku jirtaa in aanu fulino talooyinka dhanka caafimaadka ka imanaya. naftaada daryeel, tan dadkaaga daryeel, tan ehelkaaga daryeel. waa codka Soomaalida Finland SSM oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.